maxaa loo guursadaa dadku sababo badan bay u guursadaan sababaha inta badan qofku u guursado waxaa qofka baahiyihiisa qiimtiisa culaysyada kaga imaanaya deegaanka uu ku nool yahay iyo waliba casriga uu nool yahay oo qayb weyn ka ciyaaraya sababaha uu qofku u guursanayo dadka qaar baa waxay u guursadaan inay shahwadoodu uun baahi tiraan kuwa kale ayaa u guursada waalidkooda qaar baa u guursada daad ay gaareen darteed iyo inay awlaad ka tagaan dadka qaar baa u guursada inay helaan dhaqaale ama qof ay nool ahaan ku tiirsanaadaan halka dadka qaarna ay u guursadaan si ay milko iyo makaano ugu helaan bulshada ay xilligaa ku dhex nool yihiin waxaa iyakuna dhinac socda oo ay dad badan u guursadaan kahilid iyo jacayl sababaha iyo sababo kale oo badan ba waa loo guursadaa islaamka iyo ujeedooyinka guurka waxaa isweydiin mudan horta guurku ma hadaf la higsadaa mise waa wadda hadafka loo maro guurka waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay jid aanu isagu ahayn hadafka kaba dambayska ah guurku waa helin loo maro raalli ahaansha Allah subxaanahu wa tacaala marka labaadna waa mid ka mid ah nidaamyada iyo hagaajinta hanaankii uu alla aadanuhu ugu talagalay inay nolosha ku camiraan mar kalena sayidkii koonka hogaamin lahaa ugu noqon lahaayeen sidoo kalena ay u heli lahaayeen faa'iidooyin badan oo u fududaynaya sidii hadafka guud ee mas-uuliyadeed u gudan lahaayeen intaynu hadafyada u gudbin aynu marka hore isla fahanno falsafada hadafka aynu hadafka laba dhinac ka eegno tan koowaad waxa weeye ujeedada weyn ee laga leeyahay guurka talabaadna waa faa'iidooyinka isla hadafka ku jira sidaa daraadeed waa hadafyada guurka u kala qaadayna laba qaybood oo kala ah ujeedooyinka guurka iyo faa'iidooyinka isla ujeedooyinkaasi guurka laga korsanayo mar haddaynu isla garanay in guurku aanu isagu laf ahaantii hadaf ahayn se uu yahay jid hadafyo kale oo waaweyn loo maro aynu hadafyada waaweyn ee guurka leeyahay qaar ka xusno dhowrsanaan walow aanu dadku badan u guursan inay dhowrsanaadaan haddana mid ka mid ah hadafyada guurka uu alle aadanaha ugu talagalay waxaa ka mid ah inuu qofku ku dhowrsanaado oo jid xalaal ah ku guto baahida shahwo ee Allah subxaanahu wa tacaala ku abuuray oo aan wada qaldan ku gudan qofka inta aanu reer yeelan waa u nugul yahay baahida shahwo ee uu qabo in naftu iyo shaydaankuba ay ka adkaadaan kolkase uu reer leeyahay waxa u fudud inuu u guto si xalaal ah oo haboon cibaado guurku waa cibaado uu qofka Allah ugu dhawaan karo haddii uu ka soo baxo waajibiyada saaran shaqada aad reerkaaga u shaqaynayso tarbiyanta aad ubadkaaga barbaarinayso wanaaga ay isfarayaan iyo xitaa isu tegidda ay labada qof isqaba isu tagayaan oo loogu qorayo ajar sidoo nabiga naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatay oo tilmaamay waxaa sidoo kale uu qofka ajar ka helayaa naxariista iyo jacaylka ay isu muujinayaan iyo dulqaadashada ay u sabrayaan culeysyada nolosha xasilooni nafeed nolosha guurka sidoo kale waxaa ka mid ah in labada qof ay iska helaan xasilooni iyo jacayl oo iska weeshadaan noloshan turunturooyinka iyo turxaanta badan sidaan horey u soo xusnay waxaa la quraankiisa inagu leeyahay waxaynu dhexdiina ka yeelna galgacal iyo naxariis mar kale waxaa la quraanka inoogu tusaaleynaya guurka iyo labada qof waxay isku yihiin oo ah in ay dhar ama hu isu yihiin oo kale waxa la subxaanahu wa tacaala leeyahay waxa ay idin yihiin haweenku hu idinkuna ragga waxaad u tihiin hu qof kasta wax ka aqriya mowduuca guurka iyo waxay isu yihiin labada qof ee isqaba oo misna sidoo kale aayadani ku tulfakara wuxuu qirayaa in aayadu soo kooftay wax walba oo ay labada qof isqaba isu yihiin tahayna inay isu noqdaan bal u fiirso alla wuxuu labada qof ku tilmaamay inay isu yihiin dhar oo kale dharka meeqa kaalimood buu qofku u buuxiyaa dharku mar wuxuu qofku u yahay qurux mar kale wuu asturaa mar kalena waxa uu yahay difaac ka ilaaliya kuleelka iyo qarfaha mar kale waxa uu yahay dugsi iyo dugaal mar kalena waxa uu ku faano oo ku xaragoodo intaasoo macnaye ka badan buu dharku qofka u leeyahay ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa in labada qof sidaasoo kale isu yihiin isku soo wada duubo intaasiba waxay noo tahay waxa uu qofka ku raaxaysto kana helo xasilooni nafayd oo ah mid ka mid ah hadafyada guurka ilaalinta taranka aadanaha nolosha guurka sidoo kale waxaa ka mid ah inuu ilaalinayo inaanu dabar go'in taranka aadanuhu si uu u sii socdo oo facba fac ka dambeeyo uu sii dhigo tooshkii ama hogaankii ay ku ilaalin lahaayeen ammaanadii aadanuhu qaaday ee ahayd inuu koonka xamilo khaliifna ka noqdo ilaalinta abtirsiinta guurku wuxuu sidoo kale ilaaliyaa nasabka qofka aadanuhu haddii aanu jirin wadda xalaal ah oo sharciyeysan oo baahidooda shaawo ku gutaan waxaa dhacaysa in insaanku uu sida xayawaanka isku roorsado oo halkaana ku lumo abtirsiintii iyo wax isu ahaanshihii si uu ubadku u helo deegaan badqaba muasasada guurka hadafyada u jirto waxaa ka mid ah in ilmaha dhalanaya uu helo hooyo iyo aabe si wadajira u barbaariya oo u abuura deegaan ama biyo ku riimo uu si wacan ugu kacamo aadana ma noqdo ilaa aadana kala soo barbaariyo ilaahay wuxuu qosku dejiyay waajibiyo xuquuqo oo midba kale ku leeyahay si la soo buuxiyo oo loo helo qoys caafimaad qaba oo bulshada inteeda kale manfac u leh qaybtii koowaad intaas ayaan ku soo afmeeraynaa maantay la soo qaybta labaad barnaamijkan waa idin soo diyaariyay qof iskaabula laakiin qofka buugaan qoray waxaan rajeynayaa inuusan iskaabula
Hello, we are Ashri Media. If this video reached you, please share your friends and follow our page to encourage us.